kuwa kan oo ahaa mid ay ku yimaadeen dal ka mid ah beelaha deegaanada waqooyiga gobolka Galgaduud ayay kaga hadlayeen xaaladaha galmudug khaasatan qaybsiga golaha wasiirada ee dowlad goboleedka Galmudug kulankan oo ay ka soo qayb galeen haween dhalinyaro oo iyo weliba qaybaha kala duwan ee bulshada beeshaasi ayaa maanta inta ka dhacay gudaha magaalada Cabdiwaaq qaar ka mid ah odayaashii waxgaradka iyo siyaasiyiintii kala duwanaa ee ka hadlay kulanka ayaa si kamid ah waxay uga hor yimaadeen qaybsiga golaha wasiirada ee dowlad goboleedka Galmudug ayagoona sheegay inaysan guud ahaanba Galmudug ka mid ahayn dhanka kaleeto waxay eedeyn kulul u soo jeediyeen xildhibaanka beeshaan ku matala dowladda federaalka ee Soomaaliya ayagoona sheegay inuu shaqo ka dhigtay isku horkeenista beeshaan gudaheeda waa sida ay hadalka u dhigeen halkan waxa isugu yimid beelweyntii reerkiisa xuseen baa isugu timid oo ka hadlaysa aayahooda wasiirkooda kaga tashanaysa wadadooda ka dhacaysa waxay ka dhalatay dowlad xukuumad aan ku ajinaha ka dhalatay waxaa ka dhalatay xukuumad gacankumidiisa waxaa ka dhalatay xukuumad gacanta la isugu yeerayo farfiiq la isugu yeerayo ayaa Galmudug ka dhalatay taas waxa weeye mid la qaadan doono ama beeshan hadda maanta meesha fadhida oo reerkiisa xuseen ay qaadan doonaan oo ay rabaan ama ay taageeri doonaan ma aha mid suurtagalana ma aha inaan caddeeyo baarlamaanka guud federaalka xubin baan anagu ku lahay xubinkaas maalin buu Soomaaliya iyo cawdooda meesha laga doortay maalin buu yimid maalinkii laga doortay baa u dambeysay waxaa la yiraahdaa abshukuur aan yiraahdaa koo wax qabadkiisii wuxuu noqday markii la doortay walaalkii Maxamed Cali Mire ayuu u magacaabay wasiirka South Africa Soomaaliya u fadhiya oo madaxweyne farmaajo u howlgalay uu yimid intaas ka yiraahdaa wax qabadkii labaad uu noqday beelweynka asagoo ka dhashay ee dooratay oo u dooratay kursiga maanta inuu ku masalo ayuu wuxuu keenay mid isku dhigta oo isku horkeena oo laba kaan waxaa ogeysiinanaa dowladda federaalka beesha uu ku masalaya haddaan ahay dowladda federaalka in ninkaas uu dhibaatada sameeyey inuusan annagana masalinin baarlamaanka waa dhibka beesha dhexdeeda ama xildhibaankaas ka sameeyey ama Galmudug ay garab ku siisay way ku raacday xildhibaankaas reerkiisa xuseen baa doortay reerkiisa xuseen uu ahaa waxaa loo doortay oo loo idmado reerkiisa xuseen kor u qaadidda iyo maamulka iyo dowladda inuu ku matala loo dirsaday waa laga waayay dhib reerkiisa xuseen buu noqday waana kala dilay waana kala qabyaaladeeyey qodob buu lagu beeray aan lagu jirin waxaanse kaga fiyoolaanaya reerkiisa xuseen waa ka dhanyahay aragtidiisa meeshana ku wada fadhiyaan inay xilkii kala noqdaan ay u dhiibteen waa kala noqonay dowladda nageysiinayna federaalka caalamka nageysiinayna intay qusayso dhan baa nageysiinaya Galmudug dowlad loo dhalatay baan anagu ku saxaynay dhibkii la soo marayna mayri doonta kii la soo maray ayadaa curisay mid ka badan waxaan ogeysiinaynaa ama dowladda federaalka ama caalamka ogeysiinaynaa ama maamulka Galmudug ogeysiinaynaa inaysan la matalin inaanan isku imaan doonin maamul iyo dowladana wax ku qaybsan doonin dhibkii qabiil ahaan loo dhexyaalay baa loo dhexyaalay madaxweyne waxa beesha ka cabanaysaa maamulka Galmudug iyo xildhibaankii federaalka ay ku lahayd xildhibaankii federaalka ay ku lahayd aan ku hormaro xildhibaankaasi waa xildhibaan markii hore aan magac ahaan aan tirsanaynay beeshanadan kaliyana ma ahan afar beelood oo mareexaan ka mid ah oo kaliya xildhibaankaas khaasatan anagu tifadu ka soo jeeday baan bal saddexdii kale anagu dhawaaqayno cabanayna saddexdii kale hadalin la isku weydiin wuxuu dowladda federaalka uu ku matalayay afarta beelood afartii beelood beesha asaga tifada waa idooymaan tifada beesha dhawaaqaysa oo cabanayso ku aysan in kala maqyaaladeeyay anagu qorqoran oo kala soocay anagu suuqaya jiray dadku saddexdii beelood kale ee mareexaan kamid ah ayaga har waxa isku dhacay ayada waxaan cadeynaynaa xildhibaanku wixii aan ka filaynay inuusan farax ku jirin inuu soo ahayn xildhibaan ummadda matalaya waxaan filaynaa dowladda maanta la magacaabay ama la dhisi doono inay noqon doonto midii hore aan soo aragnay mid ka bedelan oo beelaha Galmudug ee shanta sano muddo ka haray ummadda Soomaaliyeed ay noqon doonaan kuwo diilo iyo horumar
waxaa muuqata hadda inay weli tii horeetu ka dambaysa oo ka dareemayaan khilaafka iyo galmudug oo maamulka kala kala deegaanada bulshada deegaanada oo laga yeerinayo magaalada Soomaaliya haddii cabdisho ay ku filantahay Soomaaliya wax laga sameeyo lama qaato federaalka waxaan leeyahay dowladda federaalka Soomaaliya Abdullahi Farmaajo markay xamar yimaadeen ayuu yimid January isaga ayaa xaliyay dowladda federaalka wuxuuna khilaafka soo kordhay madaxweynaha labadii sano وانا اسمدين وانا Soomaaliya ugu jiray Reesi Xuseen oo loo igmaday inuu maalmaray maanta uu sameeyay ama Reesi Xuseen dhexdiisa uu ka sameeyay waxaan loo faahfaahiyay walaalka wixii hadda ka bacdina inuu sameeyay talina oo ayaan shaqo ku lahayn anaguna waa la qabnaa arrinka galmudug waxay dooratay shaqsiga dooratay sida Reesi Xuseen tabuu leeyahay masiir buu leeyahay waxaan ku yiraahdaa rag talow ka go'duu leeyahay wasiirkaas oo ugu dambeysay Reesi Xuseen talay uga fariisteen culummo iyo caamo iyo aqoonyahan iyo mid kastoo ay leeyihiin iyo odayaal talay uga fariisteen go'aan bay ka gaareen reer bay siiyeen musuqmaasuq Cabdishakuur Cali Mire uu maamulay xilkaas ugu waayay oo maxaan ku yiraahdaa taas aan cadaynaynaa maamulka galmudug wax loo dhan yahay kuma dhisna madaxweynaha ninka ah qolofku waa qoorqoor waa in qoorqoor matoorkuna waa cid kale kulanka beeshan ayaa waxa uu soo aadayaa xilli maalmihii dambe kulamo isdaba jooga oo looga soo horjeedo golaha wasiirada ee galmudug ay ka dhacayeen gudaha magaalada Cabdwa isagoona uu kulankan ay qayb ka yahay kulamadaasi waa mahad Bashir Ismaan Mahad Xilibsiin Wini TV degmada Cabdwa ee gobolka Galgaduud درجع بتومان كتان درجع قلبك كبير مرحان قدر رممنا شكور على ورمتها سيدنا الغير مع انه يا اسبيتال صوت القران مدرسني في القران اقول لازم لا يدري ورقه ورينا نفضل هذا الدفاع والكورونا بارد reacting. Do you know react? kulankan oo ahaa mid ay isugu yimaadeen beel ka mid ah beelaha deegaanada waqooyiga gobolka Galgaduud ayay kaga hadlayeen xaaladaha galmudug qaasatan saameyn qaybsiga golaha wasiirada ee dowlad goboleedka Galmudug kulankan oo ay ka soo qayb galeen haween dhalinyaro aqoon-yahano iyo weliba qaybaha kala duwan ee bulshada beeshaasi ayaa maanta inta ka dhacay gudaha magaalada Cabdwa qaar ka mid ah odayaashii waxgaradka iyo siyaasiyiintii kala duwanaa ee ka hadlay kulanka ayaa si isku mid ah waxay uga hor yimaadeen saameyn qaybsiga golaha wasiirada ee dowlad goboleedka Galmudug ayagoona sheegay inaysan guud ahaanba galmudug ka mid ahayn dadka kale munaafiqiinta joogta ma jirteen nidaamka beeshan isku matala dowladda federaalka ee Soomaaliya war harti wax la yiraahdo ma jirto kale beeshan waa sida ay hadalkooda dhigeen sidii ingiriisku bay noqonaysaa sababtu waxaa weeye jamhuuriyad bay Somaliland waxay go'aan ku gaartay inay walaalahood la midoobo hadday maalintaas Jabuuti oo kale bannaanka mari lahaayeen imaan lahayd way dhammaayeen inay madaxweyne noqdaan hawiye daarood waxaa ka dhalatay xukuumad gacanta la iskugu yeerayo farfiiq la iskugu yeerayo tarfays haysto intay isku maqan yihiin taas waxa weeye mid la qaadan ama beeshan hadda maanta meesha fadhida oo Reesi Xuseen ay qaadan doonaan